maanta waxaan sameynayaa pizza guriga lagu sameeyo aad u fudud. Haddii aad jeceshahay pizza oo cheese-kiisa sidaas quruxda badan u jiidanayo, daawasho wacan. Dhanka kale waxaan sameynaynaa macmacaan oo 10 daqiiqo aad ku sameyn kartid. Qof walbana wuu sameyn karaa. Marka waxaan rajeynayaa ilaa dhamaadkii inay ila joogdiin si iskula aragno si ku soo bixin labadoodaba. Marka halkaan waxaan ku hor bilaabaynaa macmacaankii. Meeshaan waxaan soo qaatay 3 xabo ukun ah. 3 xabo ukunta eedan soo furfurayaa. Kadib markaan baaquliga ku soo shubay, meeshaan 3 xabo ukunteedan isku soo qaraacayaa. Marka hore waa in 3 xabo ukunta is dhex gasho. Marka 3 xabo ukunta ay si fiican isku dhex gasho, kadib waxaan ku soo shubayaa bakeeri haafkiis, bakeeriga shaaha oo sonkor ah. Kadib ukuntii sonkortii haddana is dhex gelinayaa si fiican isugu dhex galaan. Marka ilaa iyo 2 daqiiqo ilaa iyo 1 daqiiqo si fiican isugu qaraacdid, baad wixii dambe gadaal ugu soo darsanaysaa. Markasta isku qaraacdid, markastuu keegada noqonayo mid jilicsan. Kadib meeshaan waxaan ku soo darayaa vanilla. Haddaad vanilla rabin, waxaad isticmaali kartaa hilka. Ani markaas ii dhow ma isticmaalaa. Kadib waa kana hadda anigoo vanillihii ukuntii sonkortii isku qaraacayo. Kadib waxaan kaloo ku soo darayaa caano ku soo daray. Waxaan kaloo ku soo darayaa saliid ayadana bakeeri haafkeed ah. Intii baan haddana isku soo qaraacayaa si fiican inay isku soo dhex galaan waaye. Markay si fiican isku soo dhex galaan, waxaan sameynayaa hadduu Ilaahay ku idmahayo, waxaan kaloo ku soo darayaa baking powder-kii 2 qaado. Baan ku soo darayaa marka hore baaquligaasaan ku soo cabirtay. Kadib aan qaadada sirta isticmaala. Marka aad qaadada weyn isticmaalaysid tan size-ka ka weyn, 1 qaado buuxdo baa kugu filan. Marka hadii baking powder-ka markaan ku soo daray, waa kana haddana anigoo si fiican isugu soo qaraacayo si ay si fiican isugu dhex galaan keegaagan. Markasta oo isku qaraacdo, markasta uu noqonayo mid jilicsan. Kadib meeshaan waxaan ku soo darayaa 2 bakeeri, bakeeriga shaaha ah oo bur ah iyo haafkiis. Haaf yar, haaf xataa dhexda gaara ma haaf aad u yar waaye. Kadib meeshaan aan qaado ku soo qaraacayaa marka hore. Kadib waxaan gelinayaa mashiinta. Marka hore qaadada waxaan ugu soo qaraacayaa si firaarkaas iyo waxa si darbigii meelahaas oo dhan iga gaarin. Hadda keeg waa diyaar. Maadaama waxaan sameynaynaa uu chocolate cake yahay, kadib waxaan soo qaadanaynaa cocoa powder. 2 qaado isku soo qaraacnay. Biyo yar aan ku soo daray. Kadib waxaan ku kor darayaa burkii. Haddana sidoo kale makiinadii mar labaad marinayaa. Si fiican makiinada u marinayaa si isku dhex galaan. Waaba diyaar. Dhaladan ku gelinayaa meeshaan soo qaaday. Saliid baan soo mariyay si uu ugu dhigin. Markaan saliid soo mariyay waa kana chocolate cake waa diyaar. In oven-ka la geliyo har hadda oven-ka soo geliyay. Kadib meeshaan waxaan sameynaynaa chocolate syrup oo cake ku isticmaal lahayn. Marka hadda meeshaan waxaa ku jiro cocoa powder iyo warango. Waxaas kalena waxaa waaye coconut oo powder-ka ah waaye. Si fiican isugu soo qaraaco is dhex gelinayaa. Markaas isku dhex geliyo wixii dhan is dhex galaan, waxaan ku soo darayaa sonkor yar maadaama cake aan sonkor ku daray. Kadib waxaan kaloo ku soo darayaa biyo. Haddana waan is dhex gelinayaa si fiican inay isku dhex galaan waaye. Si fiican isugu qaraacdid. Marka hadda waa diyaar, wax ka maqan ma lahan. Markuu hadda saan diyaar u noqdo, dabka la saarayaa. Halkaana waxaan ku soo shubayaa digsiga aan dabka ku saari lahaa. Kadib caano bakeeri haafkiis aan korka uga soo daray. Dabka markaa saaraysid waa inaad dabka zaid ugu gaabisid. Kadib meeshaan waxaan ku soo darayaa chocolate syrup. Haddaadan haysanin waa ka maarmi kartaa maadaama uu yaala isaga daray. Marka hadda meeshaan waxaan soo jarjaranaynaa yaanyadeena. Yaanyada maxaa lagu sameynayaa? Yaanyadan waxaa lagu sameynayaa pizza aan sameyn rabo. Yaanyada hadhow la marin lahaa waa inta cheese-ka iyo hilibka iyo wixii dhan aadan ku darin. Soo yaanyo la mariyo maaha. Yaanyadii waa marka waan soo diyaarsanayaa. Yaanyadii hadda markaan saan u soo jarjartay, waxaan kaloo ku soo darsanayaa barbarooni gaduudka ah. Hadda noocyada kale xitaa waa ku darsan kartaa. Marka hadda yaanyada dabkaan soo saaray, kadib meeshaan waxaan jarjaranayaa barbarooni kala nooc ah. Hadhow waxaan rabaa markii aan diyaarsaday pizza hadhan hadhow gadaal arki doontaan inaan kor uga sharaxaan rabaa 3 nooc. Indhuhu u roon yahay qurux waa markaas pizza-ga loo fiiriyo. Haddaa haysan muhiim ah waa iska diin kartaa. Marka waa kana hadda meeshaan waxaan soo diyaarsaday 3 nooc oo barbarooniga ahaa. Meeshaan aan ku soo jarjarayaa qaabka siriiriska rabaa inaan u soo jarjaro si hadhow aan korka uga sharaxo. Mana karinaysid. Adii waa arki doontiin hadhow gadaal ka arki doontiin. Kadib hadda markaas aan asaga u soo diyaarsaday waxaas kaloo meesha ii yaal waxaa waaye basal baar xataa marka cuntada korka looga daadiyo si sharaxaad camal aad ay u qurxan tahay. Marka hadda asaga markaan soo jarjartay uu saas diyaar igu noqday, haddana waxaan soo jarjarnaa basal baartii aan soo biiraacay maadaama fridge ka soo bixiyay. Kadib waa kana hadda sidaan quruxda badan u soo jarjaray size-ka barbarooniga iyo basal baarka isla ekeysiinaya. Marka waa kana hadda anigoo sidaan u boobsiinayo. Marka
ma adko in aad pizza guriga ku sameysid. Kan banaanka laga keeno kan guriga lagu sameeyaa ka macaan bilxaqiiqa. kadib waa kana hadda meeshaan yaanyadii aan dabka soo saartay iyo barbaroonigii anigoo maxaa la dhahaa dabka intaa u gaabiyey jajabinaayo. marka waxaan rabaa si qurux badan oo flavor macaan ah inuu kusoo baxo. meeshaan waxaa kaloo noo saaran dabka chocolate syrup hadday sameysanayne dabka intaa u gaabiyey weli muu soo adkaan. keegina asagana ovenka hoos ku jiraa. meeshaan korana waxaan ku karsanayaa yaanyadii iyo chocolate dhow kor aan uga shubi lahaa. ma fahantay? marka waa kana alxamdulillah sidaan quruxda badan waa jawigeena. marka hadda yaanyada markay saas noqotay oo dabka saas ugu gaaban yahay kadib waxaan sameyneynaa waxaan kusoo darayaa daaniyo. daaniyada markasta waa idin sheegaa waxay ka kooban tahay waa daaniyo iyo nacnaac iyo sanjabiil iyo toon iyo saliid iyo biyo yar waay. marka waa kana hadda sidii hadan isugu soo qaraaca waa isku jajabinayaa. marka waxaan rabaa ay wixii dhan isku jajabaan baan rabaa inaan soo shiido. hadda waxaan u maleynaa inuu diyaar yahay. waxaad kadib waxaan soo qaadanaynaa mashiintii aan ku shiidi lahayn. hadda marka waxaan sameyneynaa meeshaan chocolate syrup-keena waa diyaar. haddadaan sidaas quruxda badan kusoo baxo u jiidmaayo chocolate caadi oo kusoo baxay asagana hadda dabkaa lagaga daminayaa waxyar kadib. marka waa kana hadda sidaas quruxda badan uu noogu soo baxay. kadib meeshaan waxaan usoo laabaneynaa yaanyadeeni cusbo yaraan kusoo daro meel fog ah. kadib waxaan sameynayaa haddana waa isku soo walaaqay si fiican ay kusoo baxday. maxaan ku daray yaanyo barbarooni iyo waxaa waaye daaniyo iyo cusbo yar. cusbada kuma badinaysa maadaama hilibka dhow aad karinaysid aartina cusbo kale ku dartid. marka haddadan waa diyaar. labadoodii dabkan kasoo dimiyey mashiinteeni hadda soo qaadanaynaa. waxaan rabaa inaan soo shiido way iisoo yara qabowdo xoogaha yar iyadoo zaaid u kulul ha ku shuban mashiinta. hadda waa kana marka sidaan quruxda badan iigu soo baxday anoo caagi ku shubay waa kana aan kusoo shiidi lahaa. dadka qaar waxay sameeyaan ayadoo la karinin yaanyada intay soo shiidaan dabka soo saaraan. laakiin sidaan ka jeclay marka hore waa soo kariyaa kadib baa mashiinta geliyaa shiidaa. marka waa kana hadda anagoo mashiinta gelinayno oo bahash soo xireeno. marka alxamdulillah sidaan quruxda badan uu noogu soo baxay waa soo shiidanay. waa kana anagoo hadda mashiinta gelinayno maasha allah kalarkaas quruxda badan ay noqotay. barbaroonigina waa ku jiraa. haddaan barbarooniga heli karin xataa muhiim ah inaad ku darsatid waa iska diin kartaa. muhiimada waxaa waa yaanyadaas inay dhadhan fiican yeelato oo hadhow marka pizzaha la mariyo oo wixii kale lagu daro oo cunaysid aad dareentid flavor yaroo macaan. marka hadda waa kana diyaar ay noo tahay. waxaan kusoo shubaynaa digsigan. markaan digsigan kusoo shubo haddana dabkan ku celinayo. waxaan rabaa inay yara adkaato xoogaa hadda biyo waaye inay yara adkaato ay soos noqoto waaye. dabkan haddana ku celinaynaa. wax badan ma saarnaanaysa laakiin wax yar si ay maxaa la dhahayo saas uma arsay biyo u tahay lama rabo inay wahaato waa inay xoogaa yara adkaato. marka dabkaa saaraysa waa u yar gaabinaysaa waqti badan ma saarnaanaysa maadaama diyaar tahay. biyo yaraan ku daraynaa. kadib waa kana hadda keegeena isagoo nooga soo baxay ovenka sidaas quruxda badan uu kusoo baxay maasha allah. hadda waa kana marka chocolate syrup-keena waa kaas geeskaas yaalo. keegeena sidaas uu kusoo baxay zaaid uu u jilicsan yahay. markaa jarjaraya xataa dhaqso kala fuqfuqaaya. weelashaan dhalada ahaan kusoo diyaarsanayaa. mid walba markaan ku rido waan ku riixriixayaa si hadhow markaan waxyaalaha kale ku daro uuna usoo taagtaagnaanin. waa kana hadda anigoo maxaa la dhahaa marba weelkiisa kusoo shubaayo. marka macmacaan lagama maarmo markii maxaa la dhahayo taraawiix lasoo tukado guriga lagu soo laabto wax macaan in afka la isaga miceeyo iska fiican tahay. anna maba jecli baan oo afur kariyey inuu guriga macmacaan la-aan ahaado ilaahay amarkiisa. waa inaan wax un kariyo oon fridge-kaas un kusii guro. marka waa kana hadda sidaanuu noogu soo baxay maasha allah. kadib waxaan kusoo shubaynaa caano yar si uu isku dhexgalo uu jileec zaaid usii noqdo. hadda caanihi waa kana anoo ku ruxruxayso si fiican isugu dhexgalo. kadib markaas waxaa sameyneynaa chocolate syrup-keena aan ku dareynaa maasha allah. waa kana sidaan quruxda badan kusoo baxaan ku dheer lagama sheekeyn karo. qof walba wuu karin karaa qof aan karin karin malahan. waqti badan kaama qaadanayo. wax walbana gurigaaga ka helaysaa. markaasaan u diyaarisana fridge-ka gelinaysaa. marka waa kana hadda anagoo pizza hagaajinayno ma soo duubin cafwan markaan burki qasayay cilad dhacday darteed. marka pizzaha qasaysid sida burka caadiga u qasay cusbo yaraa ku daraysaa. waxaa ku daraysaa fixiso biyo kululoo qandaca isticmaalaysaa. si fiican isugu xashaysaa 30 daqiiqo kadibna waa soo fidsanaysaa. marka waa kana hadda anagoo soo diyaarsanay oo saxankeena saas ugu soo fidsanayno maasha allah sidaas quruxda badan uu kusoo baxay. kadib markaan saas u diyaariyo waxaan soo qaadanayaa fargeeto si maxaa la dhahayo aan u dulduleeliyo oo hadhow markii sooska lagu shubo uu burka gudihiisa uu sooska si fiican ugu galo. uu maxaa la dhahayo gudaha markaa cunaysa xataa aad dareentid inuu dhacaan gudaha ka gala
waa kana marka yaanyada daaci soo hagaajisanay saas ay kusoo baxdo quruxda badan. hadda waa kana pizzaheena kusoo shubinayna si fiican u marmarinayna. marka fargeetadaas inaad ka tagtagdo waa muhiim si ay gudaha uga gasho. marka waa kana hadaan maasha Allah waxaan ku indhuhu u ruunya isagoo wax kala la marsaas u qurxin. kadib cheese korka uga soo shubaysaa. qasab maaha cheese-kaaga hadduu saan u badnayn waa iska deyn kartaa. waxaa sameyn kartaa hilibka markaa ku dartid kadib aa korka uga dari kartaa. laakiin waxaan sameeyaa yaanyada markaan ku darana xoogahan korka yaanyada ugu kor daraa. cheese-ka hilibka markaan ku darana hadana kuwa qaar kale ku sii shubaa. waa kana hadana in kale ku sii shubaa. markaas wuxuu ku noqonaa jiijid zaid uu ku noqonaa. marka waa kana hadana wixii dhan ku soo dhameeyay sidaas quruxda badan uu soo baxay. waa kana marka barbarooniga iyo basal baarka iyo wixii dhan hadaa jirjiranayso maalis markaas ugu darto zaid uu qurxan yahay indhuhu u roon yahay dhowr kala rool isku dardar waa maasha Allah. marka hadda waxaan sameynaynaa mid asaga ku horeeyay ovenka ku jiray midkii ovenka ku jiraan soo bixinay waa kana midkii kalena waa kana waan soo bixiyay. Allahumma baarik sidan quruxda badan ay ku soo bixeen aan ku dheelay lagama sheekeyn karo. marka hadaa baratid midka guriga lagu sameeyo wallahi banaan pizza uma doonanaysid gacantaada ku kalsoonaanaysaa markasta waxaa leedahay kan guriga aan ku sameeyay ku aan ahayn ma rabo. marka hadda waa kana waa diyaar ilmihii xaafada jooga bisinka loogu qabanaa ayaga loogu hor bilaabaya. waa kana hadda anaga u sameynayno kadib waa kana hadda anagoo afurkeena soo dhameysanay. marka midkee ayaa dooran lahayd pizzaha mise macmacaanka comment section ka nagu soo sheeg. fi amaanillah comment like subscribe.